عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله waxaan jeclaystay inaan la wadaago ardayda bilowga ah ee beginnerka ah ee baranaya luqadda Englishka in waxoogaa u sii fududeeyo oo alla idmo. waxaan ka hadli doonaa maanta casharka koowaad tensiga koowaad oo ah present continuous tense. Present continuous tense is used for an action which is happening at the moment of speaking or at the time of speaking. Present continuous tense waxaa loo isticmaalaa fal dhacaya waqtiga la hadlaya, isla waqtiga xaadirka ah ee la hadlaya, at the moment ama at the time of speaking, xilliga la hadlaya ee la taagan yahay, isla waqtiga xaadirka ah ee hadda la taagan yahay. waxaa loo isticmaalaa fal waa fal loo isticmaalo is used for an action. waxaa loo isticmaalaa fal dhacaya at the moment of speaking, isla waqtiga xaadirka ah ee la hadlaya, ama at the time of speaking, isla waqtiga la hadlaya ee taagan ee hadda ee la jooga. marka formula qaacidadiisa waxaa ka mid ah subject plus am or is or are plus verb plus ing plus object. qaacidadiisa waxaa waaye waa subject oo lagu daray am, is, are plus verb plus ing plus object. am, is, are saddexdan waxaa lagu magacaabaa verb to be. am, is, are saddexdaas waxaa lagu magacaabaa verb to be. examples tusaalooyinkana ka mid ah. marka waxaan rabaa casharada imtixaanaha intay socdaan, tenseskan intay socdaan, tense walba inaan kasoo qaato 3 examples. exampleska intaanan gelin marka hore waxaan rabaa inaan sharxo I waxay qaadanaysaa m. marka waxaa jirta qaacido gooni ah, waxaa jirta marka examplada present continuous tense markii laga hadlayo, waxaa jirta marka tusaale I, we, you, they. marka I waxay qaadanaysaa m, we I oo ah aniga waxay qaadanaysaa m. I meesha ku aragtid mar walbo waxay raacaysaa m. we, you, they saddexdaana meeshaad ku aragto waxay raacayaan, saddexdaan meeshaad ku aragtid waxay raacayaan are. we, you, they mar walbo waxaa la socdo are. macnaha waxaan ka wadaa tusaalaha arki doonaa we, you, they saddexdan waxay qaadanayaan mar waliba are. he, she, it. he asaga iyo ayada iyo it oo loo isticmaalo non-living things, waxyaalaha aan nooleen, saddexdaana waxay qaadanayaan is. waa qaacido jirta, waa macna he iyo she iyo it saddexdaanba meeshaad ku aragtid waxaad raacinaysaa is oo verb to be ah. aan ku celiyo I waxay qaadanaysaa m, we anaga, you adiga ama idinka, they ayaga, saddexdaana waxay qaadanayaan are. he, she, it saddexdaana waxay qaadanayaan is. okay, exampleka aan sii guda galno. affirmative waxaan ka bilaabaynaa statement jumlada caadi ah. okay, I am reading a book. I aniga, I am aniga, I waxa waaye waa subject. I waa subject. am waa verb to be. am waa verb to be. I am reading a book. I am aniga reading waxaan akhrinayaa a book.
reading marka read markay noqoto read kaliya markay tahay hadda waxay noqonaysaa marka verbkii read kaliya markay tahay waxa way read markay tahay waa verb bal qaacidadu waxay ahayd marka plus ing verb oo lagu daray ing waa qaacidada present continuous tense marka read kaliya markay tahay waxa waaye waa verb ing markii lagu daraa waa isla verbkii laakiin verb oo lagu daray ing waaye marka reading waa verbkii objectii marka wuxuu noqonayaa a book marka I am reading a book aniga waxaan akhrinayaa book I waa subjectihii am waa verb to be reading waa verbkii oo lagu daray ing bookna waa objectihii I am reading a book wixii la akhrinaayay bookga waa object waa wixii la akhrinaayay wixii la sameynayay wixii qofka uu sameynayay subjectihiina waa qofkii wixii sameynayay I am reading a book tusaalaha labaad they are playing football marka they are playing football ayaga waxay ciyaarayaan kubadda cagta ama banooniga they marka waa subjectihii are waa verb to be waa verb to be playingkii waxaa waaye waa verb oo lagu daray ing playing footballna waa objectihii wixii la ciyaarayay objectii ficilkii la sameynayay waa banoonigii football okay they are playing football ayaga are playing waxay ciyaarayaan football kubadda cagta xoogaa waan yaraha gabsanaya akhyaarta igala noqda okay marka waxaan soo sheegnay I inay qaadanayso mar waliba m waatana tusaalahana waa ku jirta I am reading a book we you they saddexdaana meeshaad ku aragtidna waxay qaadanayaan are marka tusaalaha waxaan soo qaadanay they soo qaadanay marka we iyo you meesha ku aragtidna sidoo kale waxay qaadanayaan are marka sida hore soo sheegnayba waxa tense walba insha Allah waxaan ka qaadanaynaa saddex tusaale oo kala duwan statementkiis oo wato sidoo kale oo wato affirmative kiisa question mark okay she is cooking a breakfast she waa subjectihii ayada is waa verb to be cooking waa verb oo lagu daray ing a breakfast waa objective okay she is cooking a breakfast ayada waxay karinaysaa quraac she is cooking a breakfast ayada waxay karinaysaa quraac she marka waxaan soo sheegnay she iyo it inay qaadanayaan is in la raacsiinayo okay waa la fahmay malaynaya okay waxaan usii gudbaynaa marka qaybta labaad okay waxaan ka wadaa sorry marka waxaan gelaynaa haddana ayadoo question laga dhigaayo question markii laga dhigaayo waxaa lasoo hormarsiinayaa m oo ah verb to be marka verb to be waxaan keenaynaa horey ayadan ka durmarsi aan ka hormarsiinaynaa m waxaan keenaynaa bilowga waxay noqonaysaa marka am I reading a book book miyaan akhrinayaa am I reading a book miyaan akhrinayaa marka waxaan ka dhignay marka hadda su'aalan ka dhignay waxaan soo hormarsiinay m
am waxaan keenay qaybta hore am oo ah verb to be ga marka waxaan keenaynaa bilowga markaas waxay noqonaysaa marka waxaan ka dhigaynaa marka waxay isku bedelaysaa jumladda marka su'aal am I reading a book aniga book miyaan akhrinayaa am I reading a book su'aal ay noqonaysaa marka okay tusaalaha labaad are they haddana sidoo kale are oo ahayd verb to be sidoo kale ayadana waan soo hormarsiinaynaa verb to be ga waxaan keenaynaa hore su'aasha waxaan keenaynaa markaan su'aal ka dhigayno qaybta hore marka waxaan leenahay are they playing football ayaga kubadda cagta miyay ciyaarayaan are they ayaga playing football miyay ciyaarayaan kubadda cagta waa la fahman u malaynayaa tusaalaha saddexaad waxaan leenahay is she sidoo kale is waxay ahayd waan soo sheegnay is waxay ahayd verb to be marka waxaan sameynaynaa marka is verb to be waxaan keenaynaa jumladda qaybteeda hore macnaha verb to be gii aan soo hormarsiinaynaa verb to be markaa soo hormarsiiso waxay noqonaysaa marka jumladdii waxay isku bedelaysaa su'aal marka xusuusnow su'aal markaa ka dhigaysid present continuous tense markii la joogo oo jumladda aad ka dhigaysid su'aal waxaad samaysaa verb to be ga waxaad keentaa hore asaga ka bilow macnaha min bidaayada bilowga keen macnaha okay is she cooking a breakfast quraac miyay karinaysaa ayada is she cooking a breakfast quraac miyay karinaysaa ayada marka waa la fahman umlaynaya su'aal markii laga dhigaayo okay haddana waxaan aadaynaa qaybta kale okay waxaan negative ka aadno okay negative markii laga dhigaayo marka waxay noqonaysaa I am not reading a book markaan tii hore waa ka duwan tahay subjectihii waxaa la keenaa marka waxaa laga dib marsiinaya waxaa gadaal laga marsiinaya verb to be haddaa waxay ahayd markii su'aal laga dhigaayo verb to be ga waxaa la geynayay qaybta hore hadda arrinta way isbedeshay waxaan sameynaynaa subjectihii waxaa la keenay qaybtii hore yacni macnaha subjectaha laga hormarsiinayaa verb to be ga waa la fahman umalaynaya okay I am not sidoo kale waxaa kusoo birtay meeshan not oo ah negative diidma macnaha not marka diidmada marka waxaa la gelinayaa verb to be ga hortiisa waxaa laga hormarinayaa verb to be ga waa la fahman umalaynaya I am not reading a book aniga ma akhrinayo book waa diidmo macnaha I am not reading a book aniga book ma akhrinayo ilan macnaha I am not reading a book waa isla waqtiga xaadirka hadda la joogo waa macnaha hadda aniga book ma akhrinayo macnaha it means adiga hadda book ma akhrinaysid macnaha adiga waxaan ka wadaa macnaha I am not reading a book aniga hadda book ma akhrinayo okay waa faham they are not sidoo kale they waxaa la keenay yani macnaha subjectihii waxaan ka hormarsiinay verb to be gii inglaashiisaan geynay okay they are not waxaan kusoo darnay not oo jiidma ah they are not playing football ayaga ma ciyaarayaan kubadda cagta they are not playing football ayaga kubadda cagta ma ciyaarayaan okay and she is not cooking a breakfast ayada quraac ma karinayso ayada she is not cooking a breakfast macnaha waxaa laga hadlayaa right now she is not cooking a breakfast macnaha waxaa laga wadaa isla waqtiga xaadirka hadda ayada now quraac ma karinayso macnaha
she is not cooking right now waa waqtiga hadda lagu jiro waa waqti xaadirkan she is not cooking a breakfast I hope in la fahmay okay haddana waxaan aadaynaa markii laga dhigayo question with negative diidmo iyo su'aal isku jirta markii la isku darayo question with negative okay waxay noqonaysaa marka am I not tookadan waxa way tii hore ka duwan tahay am I not verb to be waxa la keenaa tii su'aasha ahayd koodii waxay ahayd am I reading a book awal markii su'aal kaliya laga dhigayo markii diidmo laga dhigana waxay ahayd I am not reading a book marka hadda labadii la isku qabtay marka waxay noqonaysaa verb to be waxa la keenay qaybtii hore tii su'aasha ahayd iyo macnaha question with negative waxa la isku daray su'aashii iyo diidmadii la isku daray ala soo keenay hal meel la isku wada keenay marka waxay noqonaysaa am I not reading a book miyaanan akhrinaynin aniga book miyaanan book akhrinaynin marka diidmo iyo su'aal isku jirta waa marka am I not reading a book miyaanan book akhrinaynin okay tan waa fahana umaleynaya okay tusaalaha labaad are they not playing football ayaga miyaanina ciyaaraynin kubadda cagta miyaanina ciyaaraynin kubadda cagta ayaga miyaanina ciyaaraynin kubadda cagta okay are they not playing football okay tusaalaha saddexaad is she not cooking a breakfast miyaanan quraac karinaynin ayada is she not cooking a breakfast miyaanan quraac karinaynin ayada is she not cooking a breakfast I hope in la fahmay casharkan inkastoo waqtigan ugu dheeraaday insha Allah waxaan rajaynayaa in laga wada faa'iidaystay casharkan quruxda badnaa casharkeeni maanta ee ka hadlayay present continuous tense halkan ayuu noogu egyahay insha Allah la soco tensiga labaad ee soo socda insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaana ilowin insha Allah inaad janalka subscribe garayso si aad mar walba ula socoto casharada cusub insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh